Biyo kole oo caan ka ah barta TikTok isla markaana dhawaan ka soo caan baxa magaalada Kismaayo halkaasi oo madadaalo badan aad loogu garanayay guud ahaan Soomaalida ay aad ula socdeen bartiisa TikTok-ga. Wiilkan iyo sidoo kale qaarowgan lagu magacaabo Bikole ayaa hadda waxa uu ku aqal gala duleedka magaalada Kismaayo halkaas oo arooskiisa ka dhacay isla markaana aad fantasiya cajiib u ahaa. Waxaase gacan weyn ka geystay iyo sidoo kale kaalin la taaban kara Nuur Abkow oo ah ninka soo saara Bikole iyo saaxiibadii muddooyinkii dambe laga baranaya mareegta social media. Hadda waxa uu jantay inan kale taasi oo garabkiisa ka soo muuqatay isla markaana u buuxisay booskii ka maqnaa. Waa lamaano waa qoys, waxay wadaagayaan nolosha, waxayse qaadanayaan waqtigii ugu quruxda badnaa ee ugu macaanaa. Waxay qaadanayaan toddobaadka xurriyadda kaasi oo ugu magac dareen toddobaadka malabka oo lagu daray maalmaha malabka iyo habeenada bilowga ee nolosha macaanideeda. Waxayse ahayd dad badan ayaa ka soo qayb galay kuwaasi oo kaalin weyn ka qaatay arooskiisa isla markaana deeq lacageed ku caawiyay isla markaana Nuur Abkow u soo marsiiyay haddasa aqalgalkiisii ayaa dhacay iyadoo lacagta meherka ay ahayd lacag aad u yar isla markaana inanta oo jantay aad ugu kalsooneed $250 oo keliya. Muhiimadu ma aha hanti badan, muhiimadu ma aha lacag badan, muhiimadu ma ahan wax qaaliya ee waa isfaham, galgacayl, jacayl, ixtiraam iyo kalsooni. Bikole hadda waxa ku faraxsan yahay in noloshiisa cusub ay ku soo biirtay gabar aad u da'yar isla markaana da'deeda lagu qiyaasay 26 jir maadaama Bikole uu ka mid yahay da'da aadka u waaweyn isla markaana da'diisa lagu qiyaasay 48 sano jir. Magaalada Kismaayo ayaa u shidan toddobaadkan waxayse u tahay toddobaadka xurriyadda maadaama aqalgalkiisa iyo waayaha nolosha ee macaan ay ka soo muuqatay gabar aad u qurux badan garabkiisana. Muddo badan oo kalinimo u noolaa, muddo badan oo sariirta kaliis ka soo kici jiray, hadda waa iska ilaaway. Toddobaadkaansi waxay u tahay toddobaadka ugu qiimaha badan uguna qaalisan. Meher dadka oo dhan ay raalli ka yihiin, meher inantii jamatay Bikole ayaduna raalli ka tahay ayaa ka dhacay gudaha magaalada Kismaayo halkaas oo dad badan oo mas'uuliyiin madax iyo marti iyo sidoo kale dad badan oo caan ah ay ka soo qayb galeen iyadoo ay xusid mudan tahay Fartuun Balbalaarka inay qayb ka ahayd dadkii ka soo muuqday arooska Bikole taasi oo xumbaar iyo sidoo kaleba farxad ugu tagtay iyo dhiirigelin lamaanayaashan qarniga ee sanadkan loo diiwaan gashay 2022. Waxayse noqonaysaa lamaanayaashan oo muddooyinkii dambe gobolada aad fantasiya cajiib uga wadeen iyo sidoo kale in caanimadooda ay noqoto mid guud ahaan dadka Soomaalida oo dhan waxyaabaha ay ku soo bandhigaan koontadooda TikTok-ga aad loola socdo. Hambalyo badan ayaa markaan hawada loo marinayaa, farxad ayay dadku la qaadanayaan, way u hambalyeynayaan Bikole iyo sidoo kale lamaantiisa cusub ee nolosha ku soo biirtay. Hambalyo kun jeer farxa maalintiina oo qosla oo dhoola cadeeya.